Assalaamu calaykum. Waa mar kale muuqaal cusub. Haddii ay tahay marka ku horeysa channelkeena soo booqato, waxaa kaa codsanaya channelkeena noo subscribe gareys. Haddii aad horena la joogto, ha ilaalin like na sarto. Maxaa yeelay like waxay noo tahay dhiirigelin. Mahadsanid. Kusoo dhawaada sheekadeena maanta. Waxay ahayd maalin kale aan soo booqday guriga saaxiibaday. waxaan wada ciyaaraynay ciyaarista video gameska. In muddaha markaan ciyaaraynay waxaan go'aansanay banaan ku baxno si halkaa waqti wada qaadano. In cabaara markaan soconaynay waxaan dareennay baahi. Inta kadib waxaan aadnay maqaayad si aan u siibsano cunnooyin fudud. Markaan maqaayadii ka soo baxnay waxaan go'aansanay dib u soo dhanka gurigeennii si aan u soo wada ciyaarista video gameska. Hasata waxaan maqalay cod ku soo dhanka gadaasheen. Hal mar ayaan istaagnay anigoo naxsan. Waxaan dib u fiirnay. waxaan aragnay 3 nin oo gaari gadaasha taagan. waliba mid kamid ah hubeysan yahay. cabsi daran ayaa noqotay dhammaanteen. asaatay mid kamid ah saaxiibadii wuxuu noo sheegay soo nagu dhahaya fiiri saaxiibayaal waxaan filayaa ragayn rag tuuga ah. inta kadib waxaan yaqiinsanay ragayn rag tuuga ah. waxaan si degdeg u soo wada jeesanay. ayaga waxaan ku soo eegaya aniga waxa ahay ku socodka buusinaya. in cabaara markaan soconaynay waxaan helay wado u dhow naga taxaafadeen. wadadii ayaan qaadnay waliba inay socod buusinayna. in cabaara markaan soconaynay waxaan maqalay qaylo ku soo dhanka gadaasheen. waxay ahayn isla ragii waliba mid kamid ah inuu dharanaya. inta kadib saaxiibada wuxuu sheegay inay ordaan. aan ka soo cararnay waliba zaid ah. si lama filaan ah waxay soo wacay aabahay asigoo wadiinaya xilligan guri imaan lahaa. asaatay aniga waxaan u sheegay arrinta ugu dhac maanta waliba inay mursanayaan rag tuuga ah. waxaan ka codsanay inuu caawiyo. aabahay markaan u nimid wuxuu u sheegay arrinta ugu dhac maanta. waxaan ka codsanay booliiska si loo qabto ragga tuugada ahaa. markaan guri nimid aniga soo diinina arrinta ugu dhac maanta ayaa maqalay shaqar ku soo yeeris dhanka daaqadii. markaan eegay waxaan isla ragiiba aad baan u cabsanay. xasaatina si wanaag waxaa guri yimid booliiskii. waxaan u sheegnay inuu buusanay rag tuuga ah isku daynay inay dilaan. asaatay maalintii xigtay aabahay guriga wuxuu ku helay kaamirsiisii soo u ilaaliyo badqabka caafimaadkayga. haweenada ka mid ah aniga hurday qolkayga ayaa waxa maqalay shaqar. hal mar ayaan soo fariistay sariirta korkeeda anigoo yaaban. hasaatay waxaan arkay wax dhinacay taagan oo madow. inta kadib nalkii ayaan shaday. markii aan arkay qofka meesha taagnaa waana cabsaday gebigaygaba. maxaa yeelay ninka wuxuu ka mid ahaa maalintii ninkan noo cirsanayay waliba mid ka mid ah noo dhaaranayay. aad baan u cabsaday. inta kadib waxaan bilaabay inaan qayliyo. nasiib wanaag aabahay qolka soo galay sidoo qayladii maqlay. wuxuu qabtay ninkii dhulkeena la dhacay suuxinna uu garaacay. inta kadib aabahay wuxuu iga codsaday inaan waco booliiska si loo qabto ninka. booliiska guriga way yimid waxaan xiray ninkii. waxaan iga codsaday booliiska inaan dejiyo arrintan hadda degtay. hasaatan waxaa soo xasuustay gurigana waxba kaamirsiisay halkaan laga ogaan karo halkoo ninka soo galo goobta. waxaan ogaaday ninka inuu ka soo galo dhanka daaqadii. inta kadib anigu waxaan soo diiyey xilliga haddaan sii hurdi lahaa waxa igu dhici lahaa.